6 sano ka hor maanta oo kale 14 Oktoobar 2017 waxaa lagu xasuuqay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho Soomaalidii ugu badnayd ee abid isku meel lagu dilo waxay lahaayeen qabiil kasta oo Soomaaliyeed iyo dabaqad kasta oo jirta walaalayaal maalintan lama dilin qof walba oo Soomaali ah kaliya ee waxaa la dilay bini aadamka oo idil This was the biggest explosion I have ever heard. The car exploded at the center of the busiest junction in Mogadishu. It was huge destruction. I've never seen a scene like this ever before. All the buildings around him have collapsed. Rescue workers have continued day and night since the attack, trying to free multiple survivors still oo inaga mid ah oo ka gubanaya gardarrada xasuuqa ku takrifalka iyo ka been sheegidda diinta Ilaahay waxay isweydiiyaan maxaa intaa ka daran oo ka xanuun badan si ay u kacaan isaga dulqaadaan heeryada cadowga al-shabaab dadaalkii aan ka bilownay Xawaadley iyo agagaarka Xamar wuxuu sii marayaa maanta Xaradheere Camaaro Maxaas ilaa Aadan Yabaal iyo Rudhugo qiyaasa dhulka intaa la eg baaxad inta kiiloomitir uu yahay maalintaas la bilaabay halganka ilaa maanta shabaabku waa laga adkaanayay waa la jibinayay waa la sii eryayay mar walba godaa laga sii bixinayay ilaa 300-400 kiiloomitir dhul isku jira laga banneeyo waxaad ku bishaaraysataan niyaddana ku dhaadataan in aan guulaysan doonno cadowga Ilaahay ee khawaarijtana aan jabin doonno